Khadar Keyo oo fanaan dhalinyaro caan oo Soomaalida geeyga Soomaalida dhan laga yaqaan ayaa waxa lagu xiray dalka Ethiopia. Qadar Ibrahim Qadar Keyo runtii inuu xabsi ku jiro qaasatan dalka Ethiopia. kusoo dhawaada Xanaansan Media war degdeg ah oo hadda naga soo gaaray meel kala duwan ay Soomaalida degto ayaa sheegaya fanaanka weyn ee Soomaaliyeed Qadar Ibrahim Qadar Keyo runtii inuu xabsi ku jiro qaasatan dalka Ethiopia iyadoo aan la socday waayii dambeena jooga Somaliland magaalada Boorame gobolka Awdal si aan tafaasiil dheer ugu helo qadka telefoonka waxa ku jiro wariye Munasir Maxamed Cabdi oo dhun duleela arrimaha fanka Soomaalida iyo arrimaha siyaasadda intaba bal Munasir kusoo dhawaad Xanaansan Media bal xogii ugu dambeeyay la xiriira حرقة فنان قدر كيو محل ليه. والفهم هذا ما صنت هاي أديك إيو محوها تيم كذا حنانصر. نيا ورك قدام بيه هذا صوت عيب حق الجناية فنان في الصومالية قدر كيو وحاول ما تبوه ينا يحبسي. فنان قدر كيو أيام مدوين كده بتجوي تجانا الصوماليلاند أصيحة ما نمدي ما بيارجلين كده بيقولي بقى أيو كسر عليه hargeysa oo ka baxay asagoo ku sii jeeda sababa fanaanka marka waxay warar hordhac mada soo baxay ay xaqiijinayaan in la xiray oo xabsi ku hooyan marka ugu horeysa marka waxaan noo xaqiijiyay in alqoobka lagu joojiyay la qabtay oo ciidamadu ay ku dhageen muxuu ahaa muddo markii la ay kadibna la isku raacay xabsi la geeyay marka ilaa hadda lama xaqiijin sababta saxda ah ee fanaanka xarigiisa ka dambeysay laakiin wararka hordhac ay soo baxay waxay sheegayaan fanaanka لو هستو ورد أما اللحقة دينا ما عرفتي دوكومنتير وسفر هو أديك سنة واحد لما يروح هستو مركا لما حتى يجين وركات نفتي وضع نكلا ده يقول فا منصر كلي حتى أهل سوحتها إن حرقوا هاي مركا حدود الرنك وجه على إثيوبيا دولة إثيوبيا موقعات أوجا مثلا كسمالنا على غبت ما يدنا إثيوبيا يا لحقيقي إنه فنانك ما عرفتي بوحري waxaan ognahay in gulfaan deegaanada dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ay ka mid yihiin meelaha ugu badan ee fanaaniinta waliba sanadyada cusub markii sidan oo kale loo dabaaldegayo sanadka cusub ay aad u tagaan oo bandhigyada fanka iska gooyaan aad looga boqor ay tahay aad iyo aad marka fanka ujeedkiisa ugu weyn marka inay ahayd inuu Addis Ababa ka dego iyo inuu dawlad deegaanka ka dego ayaan ilaa hadda la xaqiijin laakiin fanaanka dhulka dawladda Ethiopia xadkeeda arrinkeeda ayaa lagu haystaa fanaan halkaas ayuu ku sugan yahay وما سنتها وحي حاجة سكر إن كل تبو وحكلا سعونت تنحق ورئيس ومنصر حاضر كل هاي سوين الجوجا حنان سمرين و كسر عجدة وما سنتها منصر رنتي ما مركي يقول رئيس فرنسا وماليات حرب لولقعه جودهان لوك الصومالية قاصة إثيوبيا قدر كي رنتي وحو كم يدافعون الصومالية تلسكودو يها مقالة المقدسة مركي سهران وحكوسه قرحي أم فنك كسر بلاودي magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia runtii asiga iyo fanaanka kale sicid taariikh Ethiopia isla ahaayeen runtii qadar aniga laba cisho ka hor baan la hadlay aniga wareysi gaar ah ka rabin oo si Xanaansan markaasna hees ayuu ku tumanaa magaalada Boorame ee gobolka Awdal ee waqooyiga Soomaaliya balse xarigiisa runtii waa war update oo hadda ka imaanaya Ethiopia iyo qaasatan magaalada Muqdisho dhanka kale hadda war soo dhacay oo aan fiirinayo oo dhanka YouTube-ka ayaa sheegaya ayaa si xaqiijina proof garanayo فنانك الصومالية دانتة عبد الدانتو أورنتي نفتي جسم كسر لابت الدجاجة داس جرام فوقين كدمرك مقدسية اسكو قبسدين وزيرة لنا عيارة قد أحمد ديري بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدنى السلام يا مد الصومال المركز تدون كجوكتان صوتان فيديو قصة دوبي أو هورتي نوسو استاكي وحويان فنان ضد كرنسان خضر كيو أو فنان دنيارو عانو صوماليدا جيجو صوماليدا دان لغا يقانا ayaa waxa lagu xiray dalka Ethiopia sidaas darteed waxaan fiidiyoga soo duubay in aan dadka u xaqiijiyo fanaanku inuu xiran yahay oo dadaalo badan aan maartay soo binay si aan wax badan arintaas aan ugu ogaado ani shakhsi ahaantayda marka fanaanku waayahan maalmihii isbuuc u dambeeyay wuxuu ku sugnaa magaalada Hargeysa shalay ayuu wuxuu u socdaalay dalka Ethiopia gaar ahaan caasimadda Addis Ababa fanaanka meesha laanta migrationka ayaa kulay ku dhagtay sababaha runtii ay fanaanka u qabsadeen aanu hadda halkan kama xaqiijin karo laakiin waxaan idin sheegayaa in
fanaanka shalay toole lagu xiray aeroportka xalay toolena uu meesha ku xidhnaa marka xalay markuu meesha ku xidhnaa baaritaan iyo kolley waxbaa socday baaritaankii iyo kolley howlihii socday kadibna maanta ayaa waxaa loo qaaday xabsiyada magaalada dhexdeeda ku yaala laakiin meesha xabsiga uu ku xiran yahay fanaanka kolley hadda idinma xaqiijin karo waxaan isku dayayaa inaan wax badan ka ogaado insha Allah ilaa caawa waqtiga dambe ilaa berri gelinka dambe waxaan idin soo xaqiijin doonaa meesha uu ku xiran yahay dad ehelkiisa oo xagga jooga oo waalidkii laftirkooda waan la hadlay qadka telefoonka ayaan kula hadlay iyagana waxay iga codsadeen inaan dadka bulshada Soomaaliyeed aan la wadaago fanaanka inuu xiran yahay ay waxbana ka qaban waayeen marka insha Allah sidaas ula socda waan idin salaamay meel kasta oo adduunka joogtaan aad baan idin salaamayaa runtii sanad kasto markii ay dhacayaan daawadayaal fanaaniintu waxay sameeyaan safar kala duwan ay uga baxayaan dunida dacaladeeda qaarkoodna wixii loo kale oo asaasi sameeyaan kayo safarkiisa ugu horeeyay ma aha Ethiopia ku tagayo laakiin safar kale jiray laakiin dhibaatada ugu weyn asla ah waa dhanka xuduudaha maadaama laba system oo kala gudbayo warar aan lagu kalsoonaan karin waxay sheegayaan in documento fake oo ku galay Ethiopia laakiin safarku naftigiisa Soomaaliland ku joogo wuxuu kaga yimaada Ankara Turkiga oo show ku qabanayo wararkaas oo hadda soo taray runtii wixii soo kordha Hanaasan Media ay kala socon doonta hadii la yiraahdo Hanaasan waa hoyga fanka iyo suugaanta arrimaha entertainment-gana waxa waaye kaalis gaarigay ku tahay barnaamijkan oo kooban halkan ku soo koobana aniga Maxamed Muuse ayaa halkan ka jeedinayay munasra martii ugu ah kaamirada saaxiib maslaxa barnaamijka mid lacag inta kulmi doona sidaas iyo bye bye